kusoo dhawaada barnaamijkeygii cunno karinta ahaa la magac baxay cunnadii wacnid anigoo ah sheef Cabdicasiis Dhicis su'aashan caawa idis weydiinayo waxa weeye maxuu sheefka idin hayaa sheefka caawa wuxuu idin hayaa eggplant aan karinayo iyo maaragtay digaag aan karinayo aad iyo aad xiiso u leh intaan u gudbin qaabkan caawa wuxuu karinayo marka hore waxa habboon inaan idin sharxo eggplant sidiisaba muxuu yahay eggplant waa khudrad la cuno oo la kariyo ceerin laguma cuno eggplant waa kharaar sidiisaba marka la kariyana kharaarku uu ka baxaa dad badan baa waxay aaminsan yihiin marka eggplant ay karinayaan inay eggplant jarjaraan kadibna cusbo ay ku shubaan hal saac ay dhigaan ama nus saac ay dhigaan si biyihii uga baxo taas waxa weeye waa fikrad khaldan oo misconception oo dadkii badanaa ay fahmeen in maaragtay haddii cusbo ay ku daraan kharaarka uu ka baxayo waxa weeye for example eggplant marka uu yahay fresh ceeriinna uu yahay waxaad ogaataan waa kharaar marka eggplant oo duq oo yahay ceeriin uu yahayna waxaad ogaataan waa kharaar eggplant sidiisaba waa kharaar weeye laakiin se kharaarka goormoo ka baxa weeye su'aasha eggplant kharaarka wuxuu ka baxaa marka aad karisid eggplant yar markaad karisid kharaarkii wuu ka baxayaa marka it's unnecessary inaad cusbo marisid ama cusbo lagu daadiyo half an hour lagu dhigo sidoo kale eggplant duqa waa kharaar weeye maxaa kaga hortagi kartaa waxaa kaga hortagi kartaa siyaabo badan aad kaga hortagi kartaa saltiness cusbo badan aad ku dartid biyihii unbaa ka baxaya kharaarkii ka bixi mayo ogaada waxa weeye biyihii unbaa ka baxaya cusbadana waxa ay qarinaysaa maxaa la yidhahdaa kharaarkii ayay qarinaysaa laakiin kharaarkii bixin mayso eggplant sidiisaba marka aad cusbo aad ku shubtid biyihii way ka baxayaan markaasoo kale haddaad rabtid inaad subsatid eggplant parmigiana oo qaabka sheebkiisa eggplant marka dhoota la shiilo ama la suubiyo ama wax lagu suubiyo woo kala daataa si sheebkiisii whatever isku hayo biyihii ku jiray eggplant ku jiray waa ka bixinaysaa see uga bixin kartaa biyihii waxaa uga bixin kartaa cusbo ayaad ku dhigaysaa cusbadii markay ka baxdo cusbadii waad ka dhaqaysaa waa bad dry ku suubinaysaa istiraashii waxbaa ku tirtiraysaa iyo napkins waa qalajinaysaa then barring system oo bur iyo ukun iyo waxa unbaa marinaysaa waa shiilaysaa then sheebkiisii waa ishaanayaa sidaas daarbirta oo isticmaali kartaa laakiin eggplant sidiisaba uma baahna in maaragtay la cusbeeyo taas ogaada laakiin bini aadanka waxay iska aamineen waxunbaa la iska aaminaa oo la yidhaahdo waxaas waxa weeye saas unbaa wax loo suubiyaa aniga waa Cabdicasiis Allah ka dhigay eggplant waan suubinayo waa cusbeynayaa waxaan rabaa inay biyaha un ka baxaan laakiin uma malaynayo inaan rabo in maaragtay kharaarkii bitter oo ka baxo daal la socdo waxaan kaloo oo idinku dheeraaday waxaan kaloo caawa idiin soo bandhigayaa hab kale oo maaragtay loo suubiyo digaagga isagana aad baad uga heli doontaan daawasho wanaagsan waxa aan soo qaatay eggplant basal kabsar caleen scallion waxaan kaloo aan soo qaatay yaanyo waxaan kaloo soo qaatay basil waxaan soo qaatay toon waxaan soo qaatay qorfe iyo heel waxa aan soo qaatay saliid waxaan soo qaatay cusbo waxaan soo qaatay maraq digaag waxaan kaloo soo qaatay barbarooni digaag iyo waxaan soo qaatay basil waxaan hadda isku shiidayaa basashii iyo maaragtay yaanyadii iyo khudradeedii si fiican ayaan iskula shiidayaa blenderka kadibna waxa aan yeelayaa waxaan soo qaadanayaa maxaa la yiraahdaa eggplant cusbada ayaan maaragtay cusbo ayaan ku shubayaa dhacanka ayaan ka bixinayaa eggplant waxa aan yeelayaa si isla eg ayaan u gooynayaa si dherer oo isla eg ayaan mandiliinka ugu goonayaa markaan si fiican eggplant-kan u gooyo ayaan waxa aan ku ridanayaa weel ayaan ku ridanayaa kadibna waa cusbeynayaa waxa aan sugayaa 30 daqiiqo ayaan sugayaa markii biyaha iyo dhacaanka oo ka baxo ayaan waxa aan soo qaadanayaa birtaawada waxa aan ku shubanayaa saliid ayaan ku shubanayaa markay saliidda iyo birtaawada ay kululaato si fiican ay u kululaato ayaan waxa aan ku darayaa eggplant-kii ayaan ku darayaa labada dhinac ayaan ka madoobaynayaa waxaan kaloo soo qaatay birtaawo saliid ayaan ku shubtay waxa aan ku shubayaa qorfe iyo heel iyo toon iyo xawaajka jaallaha ayaan ku shubayaa 1 minute ayaan isla guduudinayaa markaan isla guduudiyana kadib yaanyadii iyo basashii aan soo shiitay ayaan maaragtay la shiilayaa si fiican markaan iskula kariyo ayaan waxaan ku darsanayaa maraq digaag ama si cusbada
cunada waxaa wanaagsan in loo qiyaaso iskaga dar ma aha marka hadba inta kugu filan cusbada waa garanaysaa marka inta aad yareyn kartid cusbada is much better waxaan kaloo aan ku darayaa basbaas iyo waxa aan ku darayaa basil kadibna waxaan ku darayaa eggplant si fiican ayaan iskula karinayaa waa daboolayaa 10 daqiiqo kadib markay si fiican ma aragtay u karo daboolka ayaan ka qaadayaa daboolka marka aan ka qaado waa walaaqayaa haddana waxa weeye waa presentationkiisii marka intaan presentationka u gudbin waxa aan suubinayaa digaag aan ku suubinayo basbaas ma aragtay basbaas iyo yaanyo waxa aan soo qaatay digsiga waxa aan ku shubayaa basal iyo saliidda markay si fiican kululaato ayaan basasha cunada lagu daraa basashaan ku darayaa basasha markay iga jilicdo ayaan waxaan ku shubayaa ma aragtay hilibkii digaaga ahaa iyo 2 nooc oo xawaaji ah waa isla madoobeynaya kadibna waxa aan ku darayaa basbaas gadiid oo shiidan iyo yaanyo aan soo shiiday mashiinka aan ku shiiday taadan haysan yaanyada oo fresh oo aad soo shiidatana waxa aad suubin kartaa crushed tomato gasac ku jirto waa ku darsan kartaa waxaan kaloo ku darayaa basbaas iyo carrot iyo baamiyaha cunada aad buu u carfiyaa dhadhan fiicanna wuu siiyaa waxaan kaloo ku darayaa xoogaa yar oo maaragtay cilantro 25 daqiiqo markay isla karaan oo maaragtay biyihii iyo dhacankiisii si fiican iskula karaan waa walaaqayaa waxa aan ku darayaa hadda barbarooniga cunada badanaa waxaa habboon marka aad 3 qaybood loo qaybiyo waqtiga karinta labada qaybood oo u horeysa marka ay baxdo qaybta u dambaysa barbarooniga inaad ku dartid dadna waxay suubiyaan qaybta hore marka ay suubiyaan ayay kadib barbarooniga ay ku daraan barbarooniga cunada aad buu u carfiyaa 40 daqiiqo ayaa ka soo wareegtay waa u jeedaan digaagii si fiican ayuu u karay daboolka ayaan ka qaaday wax walba carfiyaashiisina waa ku daray basilna waa ku daray carrotski wuu ku jiraa yaanyadii way ku jirtaa wax walba way ku jirtaa waxa aad ku cuni kartaa wax alla waxa aad rabtid ayaa digaaga aad ku cuni kartaa hadda waxa aan soo qaatay sixni waxaan dhex dhigayaa eggplantkii aan soo suubiyey oo aad iyo aad u carfoon aadna u macaan eggplant wuxuu ku fiican yahay sidiisaba qabow in lagu cuno kuma fiicna waxa uu ku fiican yahay kuleel in lagu cuno labada dhinacna waxa aan ka dhigayaa basil caleen oo basil ayaan ka dhigayaa ku qurxinayaa carafna way siin kartaa hadda waxa aan soo qaatay digaagii isagana sixni ayaan ku shubtay waa u jeedaan aad buu u qurxoon yahay si isleeg ayaan u dhigayaa waxa digaagan aad ku cuni kartaa jabbaati ayaa ku cuni kartaa waxa aad ku cuni kartaa bariis aad ku cuni kartaa waxa aad ku cuni kartaa muufa ku cuni kartaa waxa ku cuni kartaa soorba ku cuni kartaa wax alla waxa aad ku cuni kartaa wiigaga dambe hadduu ilaahay yiraahdo waxaan soo qaadan doonaa barnaamijyo kale oo ayagana aad iyo aad xiisa u leh diishkan waa u jeedaan aad buu u qurxoon yahay qada waa ku cuni kartaa casho ahaana waa cuni kartaa rooti ku cuni kartaa waxa la waxa rabta ayaa ku cuni kartaa wiigagii hore waxa aan soo qaatay qaabka loo suubiyo mooska waxaan soo qaatay qaabka loo suubiyo ma aragtay rootiga waxa aan soo qaatay qaab loo suubiyo maxaa la yiraahdaa hadduu ilaahay ku roon yahay hamburgerka waxaan idin tusin doonaa hadda qaabka sida loo suubiyo rosorta sida loo suubiyo briiska sida loo suubiyo chapatiga sida loo suubiyo muufo baraawe sida loo suubiyo xalwada sida loo suubiyo buskudka 2 nooc oo buskud ah oo macmacaan ah waa idin tusin doonaa hadduu ilaahay yiraahdo wiiga soo socdo marka saa ula socda cunadeena caawisaasay ku soo baxday